waxay UN ku sheegtay inay ahaayeen dadkii ugu badnaa dunida ee lagu dilo diin nacayb iyo cunsurinimo laga soo bilaabo 25 Agoosto ee sanadkii 2017 waxa uu yaraantii ku dhintay 24,000 qofood gobolka loo yaqaan Rakhine oo ay degaan muslimiinta in ka badan 34,000 oo qof ayaa iyaga oo nool la gubay halka 114,000 oo kalena si ba'an loo garaacay 18,000 oo isugu jira gabdho iyo haween xaas ah ayaa sidoo kale loo geystay tacdiyo jinsiga ka dhan ah sidoo kale 115,000 oo guri ayaa la gubay warbixin ay soo saartay hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in tirada qaxootiga uu gaarayo 750,000 oo qofood kuwaas oo u badan carruur waalidkoodii u dhintay dadkan ayaa hadda ku nool waddanka Bangladesh maadaama ay diris la ahaayeen markii horeba maanta waxaan kaga hadlaynaa dhacdadan aadka u xanuunka badan shakhsigii ka dambeeyay Ashin Wirath cunsurigan nacab muslimiinta ayaa ku dhashay meel u dhow Mandalay abaarihii 1968 iskuulkii uu dhigan jiray ayuu ka baxay asiga oo jira 14 sano si uu u noqdo wadaad diimeed ama shakhsi faafiya diinta Buddhiska sanadkii 2013 ayuu ka mid ahaa dadkii ku lugta lahaa dhaqdhaqaaqii 1969 kaas oo ahay dagaal ka dhan ah muslimiinta 2 sano kadib ayaa lagu xukumay 25 sano oo xariga laakiin waxa la sii daayay sanadkii 2012 waxa uu isticmaali jiray Facebook laakiin hadallo nacayb ah oo ku weeraray muslimiinta darteed baa looga mamnuucay Facebook waxa uu wareegay YouTube masidaro YouTube dad badan oo daawada muuqaaladiisa kama uusan helin sida darteed waxa uu sii guuray ama uu wareegay baraha bulshada ee Twitter-ka dhanka siyaasadda September 2012 cunsurigan ayaa hogaamiye ka ahay banaanbaxyo ballaaran oo ka dhacay Mandalay kuwaas oo ujeedadoodu ahay in muslimiinta ku nool Rohingya la gubo ama loo raro oo ay degaan dabaqada saddexaad ee waddanka macnaha goobo ay noloshooda liidato bil kadib waxaa sii kordhay rabshado kuwaas oo gilgilay gobolka ninkan ayaa sidoo kale sheegay in rabshadahan ahaayeen kuwii ugu xumaa ee abid ka dhaca bartamaha Myanmar rabshadahan ayaa ka bilowday bartamaha magaalo lagu magacaabo Meigtila taas oo ay doodi ku dhex martay qasad Buddhis ah iyo kuwa muslimiin ah kadib ay doodi isku bedeshay boob iyo dil sababtayna dhimasho 14 qofood iyo in la gubo dukaamo guriyo iyo goobo wax lagu caabudo cunsurigan ayaa la sheegay inuu ka dambeeyay kadib arrinta ayaa jaraa'idada lagu soo qoray The Face of Buddhist Terror oo macnaheedu tahay wajiga argagixisada ee Buddhiska sidoo kale waxa soo baxay oraahyo kala duwan sida waad noqon kartaa qof daacad ah dadkuna ay xushmeeyaan laakiin ma jiifan kartid meel uu jiifo ay waalan cunsurigan ayaa sidoo kale ku soo qoray baraha bulshada haddii aan noqono kuwa jilicsan muslimiinta ayaa xoog ku qabsanaya dhulkeena asiga oo kaashanaya ama xiganaya dawladaha deriska la ah oo ay sii kordhayso tirada muslimiinta oo uu tusaale u soo qaatay waddanka Indonesia waxa uuna sheegay inuu ka walwalayo inay dhacdo sida mid lamid ah dagaal ku qaaday qaramada midoobay ninkan kontaykoo jirka ah waxa uu jeediyay hadallo badan oo dhibaato horseeday markii qaramada midoobay ee ergey gaar ah u dirtay Myanmar sanadkii 2015 si ay u soo baaraan tacadiyadaha ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay waxa uu ergeyga baarinta loo diray ku tilmaamay inuu yahay daawaco iyo qof jirkeeda ka ganacsato dawladda Myanmar ayaa beenaysay warbixinta qaramada midoobay maalinta ICC ay halkan timaado waa maalinta uu Wirath qaadan lahaa qori ayuu taageerayaashiisa u sheegay waddankan bisha Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay ururada uu ka tirsan yahay waxa uu ka tirsan yahay ururka 969 oo isku daya inay maraan waddo walba oo ay muslimiinta ku ciribtiri lahaayeen 2023 ayuu taageero ka helay madaxweynaha dalka taas oo ku tilmaamtay inuu yahay wadaad diimeed aad u wanaagsan una baahan in la taageero sidoo kale waxa uu xubin ka yahay ururka MAPA oo la asaasay sanadkii 2014 balse waxaa la mamnuucay sanadkii 2017 Wirath waxa uu xiriir dhow la leeyahay urur ka dhisan dalka Sri Lanka oo lagu magacaabo Bodu Balasena ama PPS waxa hogaamiyaha waddanka reer Sri Lanka ah waxa hogaamiya wadaad reer Sri Lanka ah oo haysta diinta Buddhiska ururka PPS ayaa ku caanbaxay ololaha rabshado wata ee ka dhanka ah muslimiinta weerarku ku qaaday madaxweynaha dalkaas wuxuuna yiri oraahyadan waxay u labisataa sida haweenka xayeysiiya dharka ee marsada waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan waxay maraysaa goobaha iyadoo si la yaab leh u socoto kabo qoob dhaadheer leh xiran oo qaar dambeedka u muujinaysa dadka shisheeye ayuu yiri bishii April xilli uu la hadlayay taageerayaashiisa waxa uu hadalkan ku waday hogaamiyaha Myanmar hadal uu bishii May jeediyay Wirath wuxuu saraakiil ka tirsan dawladda ku eedeeyay inay la seexatay nin shisheeye ah gabadha madaxweynaha ka dalkaas waxa guursaday nin dhashay Ingiriiska oo la yiraahdo Michael Aris kaas oo sanadkii 1999 u geeriyooday cudurka kansarka waxayna muddo ku jirtaa xabsi guri intaas ayuu ku egyahay mowduucani aan maanta kaga hadlaynay
cunsuriga ka soo jeeda waddankan Myanmar kaasoo mar walba bartilmaameedkiisu u yahay muslimiinta. Waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysatay. Waxaan kaga tegayaa sidaas nabadgelyo iyo isku laawad wanaagsan.